daafurka mashruuca biyo-gelinta magaalada Laascaanood oo ay midoobeen 16 shirkadood oo wadani ah ayaa ka qabsoontay magaalada Laascaanood iyadoona mashruucaasi lagu wareejiyay shirkadda Nugaal ANC waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool kan degmada Laascaanood isimo cuqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Nugaal ANC Ismaaciil Axmed Dayib iyo sidoo kale Axmed Khaliif Axmed oo faahfaahin ka bixiyay mashruuca biyo-gelinta magaalada Laascaanood
Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.